asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo dunida ka joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkii xikmadaha dahabigaha qaybtiisa saddexaad. daawadayaal qaybtan saddexaad waxaynu kusoo qaadan doonaa 7 xikmadoodoo dahabiya. inkastoon toddobaadkii hore kusoo qaadanay iyagana 7 la mida, haddana toddobaadkan insha allah waxaan idinku talagalay 7 la mida oo insha allahu tacaala aan rajayn doono inaad ka heli doontaan daawadayaal. haddaba daawadayaal haddaynu gudagalna barnaamijkeena oo aynu si toosa u gudagalno oo idiin soo qabto xikmadda koowaad waxay leedahay daawadayaal, maalin kasta waa fursad lagu siiyey si aad noloshaada wax uga bedesho. taasoo macnaheedu tahay noloshaada aynu noolnahay maalin kastoo ina soo maraysa waa fursad la doonayo oo ilaahay subxaana watacaala kugu talagalay inaad noloshaada ku bedesho. oo shalay haddaad xumayd inaad maanta aad wanaagsanaato oo noloshaada wax ka bedesho. haddii camalkaagu aanu wanaagsanayn aad maanta u wanaagsanaado. salaadii shalay aad qabanaysiin salaadaadii maanta ay ka wanaagsanaato. inaad isbedel la timaado oo aad noloshaada aanad halkii aad shalay taagneed aanad taagnaanin ayaa loo baahan yahay. xikmadda labaad waxay leedahay daawadayaal, eber ama tirada eber waa tiro laga maarmaana, sababtoo ah wax kasta eber ayuu kasoo bilaabay. noloshan waxaweye xagga sare kasoo bilaabay ma jiro, ama 100 kasoo bilaabmay ama 10 kasoo bilaabmay, laakiin wax kastaaba eber bay kasoo bilaabmay. waxaa looga jeedaa taa macnaheeda maanta haddaad aragto noloshaada wax kasta oo aanad haysanin, tusaale ahaan bili-aadankuba saasunbuu haayo adigunbu kula mid ahaa, saasoo kalunbuu maalmaha ka mida ninka taajirka ama wax haystaaba uu u ahaa adigoo kale oon waxba u haysanin, laakiin nolosha eber uga soo bilaabay. waynu garananaa dad badan oo caana oo caalamkaynu ka naqaano oo taajiriina oo noloshooda horumariyey, eber bay kasoo bilaabeen noloshooda. markii dambe ay dadaaleen, ay didideen, ay shaqaysteen, ayay halkaa gaadheen ay maanta marayaan. marka wax kastaba adduunka waxa eber bay kasoo bilaabeen. marka lambarkaas runtii waa lambar muhiima, saasaa looga jeedaa. ta saddexaad, qof kasta dabeecadiisa kula dhaqan si aad u soo jiidato. dadku way kala duwayn, qofbaa dabeecad xun, qofbaa jecel hadalka naxariista leh, qofbaa jecel hadalka adag, qofbaa qofba dee dhaqan buu leeyahay u gaara, oo qofba waxaanad ka helin oo aad leedahay malaa dadkao dhan way ka wada helaano aan necebba laga yaabo inuu isagu neceb yahayba biyaha qabow, hadallada qabow, waxyaabaha kale waxaas leedahay de kula dhaqan. marka qof kasta dhaqankiisa iyo dhaqanka uu leeyahay kula dhaqan. dadku isku wada mid maahay adduunkan, una fiirso kana fiirso adigoo eegaya oo qiimeynaya. ta afraad, sida loo kala qalad badan yahay ayaa loo kala khibrad badan yahay. qof kastaaba qofku khalad badan yahay ayuu ka khibrad badan yahay. waxaan uga socda muhiimadu maaha qofku inuu khaladaad badan yeesho, laakiin muhiimadu looga socda looga dan leeyahay khaladku wuxuu ku barayaa oo kuu saxayaa wax kaa khaldanaa. waayo noloshaada maanta tusaalahaan waxaad shalay ku dhacday ooad samaysay maanta ku dhici maysid, leanna waxaad og tahay maanta haddaad ficilkan samayso waxa kaaga imanaya oo hore adiga kugu dhacay, oo adigu aad ka khibrad badantahay qofka maanta tusaaleahaan ku dhacaya amaba qabanaya shaqa adigu aad shalay soo qabatay oo aad adigu ku khaldantay, laakiin maanta aad saxayso. haddii aad maanta wada gashaan shaqadaa qofkaas oo tusaaleahaan adiga maanta meelbad hore uga soo shaqaysay amaba gaadhiba tusaaleahaan kaxaysay, gaadhigii khaladaad ka gashay, waxaad yimid qof kalo cusub oo doonayasna inuu gaadhiga kaxeeyo. qofkaasi isku mid ma tiidin, waayo adu horead u kaxaysay oo waad kaga horreysay. khaladaadkii badnaana waad garanaysaa meesha gaadhiga halka la qabanayo, marka beriga marka la istaajinayo, marka la dhaqaajinayo, marka la duwayo, marka wadada laga tallaabo, waxaaso dhan waad garanaysaa, waayo horead khaladaadka usoo gashay, deetna waad sixi karaysaa. laakiin qofka wuu ku cusub yahay, marka adigaa ka khibrad badan, waayo leanna qofkan weliisa khaladkii muu gelin oo weli muu tijaabinin. marka taas looga socda waa taas. sida loo kala khibrad badan yahay loo kala khalad badan yahay ayaa loo kala khibrad badan yahay.
xikmadda shanaad